وزارة ku-xigeenka dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya ahna wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdi uu hogaaminayo oo socdaal hawleed ku jooga magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda waddanka Malaysia ayaa waxay wada hadallo la qaateen ra'iisul wasaaraha waddankaasi iyo mas'uuliyiin kale. Wariyaheena Saciid Cumar Baafe ayaa warkan Kuala Lumpur inooga soo diray. hogaaminayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ku-meel gaarka ee Soomaaliya Maxamed Maxamuud Ibraahim ayaa dhawaan soo gaaray caasimadda Kuala Lumpur ee Malaysia. wasiirka ayaa socdaalkiisa ku weeliyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Axmed Xasan iyo madax kale. waxayna kulamo la qaateen madaxda waddanka Malaysia oo ka mid yahay ra'iisul wasaaraha iminka talada haya Daatun Najiib iyo ku-xigeenkiisa. waxayna u gudbiyeen warqad tacsi oo ay ka sideen madaxweynaha dowladda federaalka ku-meel gaarka Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo shacabka Soomaaliya kadib markii 2 September lagu dilay Soomaaliya sawir-qaado u dhashay telefishinka barnaamij ay laga leeyahay waddanka Malaysia iyadoo xilligaas ay ku guda jireen soo tabinta abaaraha ka jira Soomaaliya oo la socdeen kala Puntland Malaysia oo mucaawino u geeyay shacabka Soomaaliyeed ee saameynta ku yeelatay abaaraha ka jira Soomaaliya. wasiirka ayaa ugu horreyn waxa uu ka warbixinayaa ujeedada safarkiisa. safarkeen ujeedadiisa waxay ahayd inaan dowladda Malaysia uga tacsadeyno geeridii nasiib darrada ahayd ee ku dhintay ninkii wariyaha ahaa ee u shaqeynaya telefishinka reer Malaysia ee la socday qoladii mucaawanada noo siday Putra taasoo nasiib darro ayaa maalintii ugu dambeysay lagu toogtay uu ku dhintay si nasiib darro ah magaalada Muqdisho taasoo ay u gelisay walwal badan ay ku abuurtay dadka reer Malaysia siyaasadda dowladda iyo qoladii mucaaradka dood badan dhaxmarisay inaanu marka arrinta dejino aan uga tacsiideyno dowladda dalka. wafdiga ayaa sidoo kale waxay soo booqdeen wariyihii lagu dilay Soomaaliya Nuram Faisal reerkiisa waxayna halkaasi kula hadleen saxaafadda. waxa kale oo u tagnay qoyskii uu ka geeriyooday marxuumka aan gurigooda ugu tagnay halkaas oo ay nagu sugayeen qolooyinkan warbaahinta aan ku siinay tacsiid reerka aan ugu tacsiideynay aan la fariisanay أنا كون عنينا إن مارت أي كحيين ومد صوماليات دولة صومالية شعب كوا أي كحيين غير أن حدنت أي كتبت ميل كوضة. wasiirka ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in Soomaaliya ay safaarad ka furan doonto Malaysia muddo 2 bilood gudahooda iminkana uu magacaabay safiirkii ka howlgali lahaa. safiir ayaa loo soo magacaabay meeshan safiirkaasi hadda ma joogo magaalada wuxuu ku maqlay Australia laakiin ويمان دونا the next 2 months labada bilood soo socda ay hawshiisa bilaaban doontaa howlwadeena kale ayaa jira halkan jooga oo iyana magaalada degan oo iyana Allah magacaabay oo xilkaasi kala qayb gali doono. Dato Aziz oo ahaa madaxa mashruuca Club One Putra Malaysia oo mucaawinada geeyay Soomaaliya ayaa ka warbixinaya socdaalka ay ku soo gaareen Malaysia madaxda ka socota dowladda federaalka ku-meel gaarka ee Soomaaliya. The Deputy Minister of Fishery and the Deputy Prime Minister came to wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga ra'iisul wasaare ku-xigeenka waxay Malaysia u yimaadeen ayagoo ku hadlaya magaca dowladda Soomaaliya si ay ugu tacsiiyeen shacabka reer Malaysia wariyihii la noogu dilay Soomaaliya. annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan hawsheena aan halkaas ka sii wadi doono. ugu dambeyntii wasiirka ayaa kulan la qaatay safiirka Soomaaliya u fadhiya Indonesia Safiir Calow iyo qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata Malaysia wuxuuna ardayda ugu hambaliyay guusha ay ka gaareen waxbarashadooda isla markaana u sheegay in waddanku u baahan yahay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in ay jiraan arday Soomaaliyeed oo xilligan adag aan ku jirno ay ku guuleysteen inay dhamaystaan waxbarashadoodii heer jaamici ahayd ama bachelor ama masters ku dhameeyay dibadda iyagoo yacni waddankii burbur iyo dowlad la'aan ay ka jirtay muddo 20 sano la soo dhaafay iyagu ay ku guuleysteen inay gaaraan natiijo noocaas aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waddankiina u baahan yahay dhalinyaradaasi. waa markii ugu horeysay wafdi caynkan oo ka socda dowladda federaalka ku-meel gaarka ee Soomaaliya ay soo gaaraan caasimadda Kuala Lumpur ee Malaysia.
tanina waxay daba socotay dilkii loo geystay 2 Sebtembar wariyihii ka howlgalayay barnaamij TV kaasoo lagu dilay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxayna tacsi ka sideen shacabka Soomaaliyeed iyagoo u gudbinayay shacabka reer Malaysia Saciid Cumar